السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين السلام يا قيرت شرفت الميل قصتو دنيا دعلديدي دافيدا تكي joogtaan ku saliya xabiibkeena Muhammad subhanahu sallallahu alayhi wasallam himri dheer cibaado subhanahu caafimaad qabku waar meel kastood ku sugantay. maanta waxaa idin wadaa vlogan aad ka quruxda badan maadaama waayahan aanan wax idin soo gelin YouTube-keena aan ka maqnayn arrimo jira awgood mashquul baa iska dhacay waxbarasho la iska galay waxa waaye hawsha waa la isku wadi waayay walaalo badan aad bay noo soo raadiyeen runtii waa ogaayna ay xiisteen mar walba waa soo raadisaan adinkana intoo kala idin xiisay saa tabaysan waa idin tabay marka insha Allah taala dib ayaan ugu soo noqon doonaa ama dib ayaan u soo celin doonaa YouTube-ka in aan joogto wax soo dhigno hadii alla idmo walaalaha xagga TikTok-ga nagala socda adinkana aad baa u mahadsantihiin dhiirigelintiina iyo mar walba sidaad noogu xirantihiin insha Allah taala hawsheena dib ayaan kasi wadi doonaa wayna sii socon doontaa maanta marka waxaan aadnay xoogaa dalxiis yar baan aadnay meel halkaan waxaan tagnay maasha Allah quruxda aad yaabaysid vlogana idinkaga soo duubay malay kalluun fish waxaad rabtid u aqood meeshas ilahaas biyuusa ay u qubanayaan aadka u quruxda badan baa tagnay runtii meelaan soo jeclaystay bay ahayd aadna waan uga helay xayawaanaad joogay waxa weeyaan noocyo fara badan oo xayawaano oonan magacyadooda ku garanayn ayaa jooga meelaha loo dalxiis tago weeye dee waxa weeyaan wad la cajabaysaa wax aad garanayn magacyadooda oo wada bahala ilaa ay wadiisa biyaha waxa ku dhex jira tirada ka bateen noocyo badan iyo magacyo badan way leeyihiin sidoo kale waxaan aadnay qaybta oo bahalada iyo xayawaanka iyo xoolaha iyo wax kasta ay joogaan ayaan ayadana tagnay oo aan soo fiirinay aniga marka de bahalada ma kala aqaan magacyadooda halkaas aan xoogaa isaga soo dheelnay meesha ciyaalka isaga soo baashaaleen waqti ku soo qaadanay qurux bay ahayd meesha ciyaaro iyo waxba ka socday fanaaniin iyo waxba joogay waxba la tumayay halkaas aan iska soo qaraaxaysanay cabaar soo qorraxaysanay cagaarkaas sawirra ku soo galgalnay waxa waaye waa meel dadka maaragtay ilmaha wajiga wax loogu soo sawirayay ilmaha wax loogu sameynayay halkaas ayadana xoogaa waqti ku soo qaadanay kadibna aragii baan u nimid argaan meeshaan u isciirsanay anugii hooyadiis ariyanay lax iyo orgigeed isciirsanay iyo wankeed isciirsanay geel iyo sac isciirsanay waxa waayaan waayaabay saabaan ku idaha iyo ariga iyo kan kale riyaha iyo yaa yuurta hooyadeed laxdi dhashay la socota doorada maxay raadayay si dhalay iyadana la socota inaba caadi ma fiirmidaan midaan kan waxa waayaan waa ariga aabihiis waaye kan madowya garbu leeyahay nin weyn oday waaye halkaas gacanta markiisa looga siiyo inuu gacanta ka cuna ka baqaysa cabsi xoogaaba ka jirta aniga geesaas dheer waxaas waa ka cabsanaya sababtoo ah ma garanay ma fahanteen marka asxaabay halkaas waqti ku soo qaadanay digaagii iyo wixii bahaladaas kale iyo waxaas dhan meeshaas ay joogaan adinka magacyadooda dad qanaan kulli adinka soo sheegi doonaan laakiin magacyadooda aad ma ka saay igu qaata laxdaas iyo waxa ka garanaytan hadda bahalkan kan maxaa waay magaciisa ma ka saay magac uu leeyahay laakiin aan ma garanayo ayaga magacyo ugu wada qoran kuwa kasta magacyo ku qoran kulli ari ma ahan laakiin waa wax kale kuwa kasta meesha ku jiraan magacyadooda ku qoran iyo sawiradooda ayaga way yaqaanaan laakiin aniga ma aqaan magacyadooda ari geel sooya ma fahanteen kana sagana loodii waaye looda geesaha waaweynka oo madowga ahaa waaye iyo shambiraha iyo waxaas dhan meesha ordayaan aan meesha waa ka cabsanayay kii kale madowga oo tukaha la dhahay asagana waa jooga xaaladda waxa idin caadi ma ahayn cabsi ay ahayd kaas looda geesaha ku gashtaan waa ku dhamaad